aan ku bilaabay ilaa hadda maamulada Galmudug Hirshabelle iyo Puntland ayaan guda gelin qabashada doorashada golaha aqalka sare ee Soomaaliya saddexda hogaamiye goboleed ayaa waxaa looga fadhiyaa in marka hore ay shaaciyaan liiska xubnaha senatarada ee u sharaxan 4 sano ee soo socota ka mid noqoshada golaha aqalka sare ee Soomaaliya gudiyada labada maamul waa gudiyada saddexdan maamul ayaa soo saaray warqado ay hogaamiyaasha ugu dalbanayaan inay ku dhawaaqaan musharaxiinta maadaama la joogo waqtigii lagu heshiiyay in la qabto doorashada golaha aqalka sare ee Soomaaliya si markaas loo dhaqan geliyo jadwalka heshiiskii hore loo gaaray doorashooyinka Soomaaliya kuraasta qaar ayaa loo adag loo gali doonaa hayeeshee waxay ku xidhan tahay liiska ay saddexda hogaamiye ee Cali Guudlaawe Qoorqoor iyo sidoo kale Dani ay ku dhawaaqaan hore waxaa doorashadan u bilaabay Kismaayo oo Jubbaland ay ku qabatay kuraas kamid ah 8 kursi ee Jubbaland ay ku leedahay aqalka sare Baydhabo ayaa iyana 5 kursi lagu soo doortay oo kamid ah kuraasta koonfur galbeed ee ku leedahay aqalka sare haddaba maxaad is leedahay maamulada kale way ugu dhagan yihiin doorashada maxayse tahay sababta loo daahinayo maadaama jadwalkii laga soo gudbay 25kii July ay ahayd in doorashada ay bilaabato kadibna bishan Agoosto gudaheeda la qabto doorashada golaha shacabka ee Soomaaliya dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu dadaal ku bixinayaa sidii xal loogu heli lahaa dooda ka taagan dhismaha guddiga doorashada ee maamulaya kuraasta gobolada waqooyi goordhow warqad ka soo baxday guddiga hirgelinta ee doorashooyinka waxaa lagu shaaciyay in waqtiga la qabanayo doorashada guddoonkaas labada garab ee muranka u taagan yahay in 3 maalmood gudahood la shaacin doono daawadayaasha ee barnaamijka iyo ka qaybgalayaasha ayaan aadi doonaa qofka ugu horeeyo hayeeshee markan awaayahay qadka ayaa ka go'ay daawadahaasi waxaan rajeynayaa inaan dib isu haleeli doono saaxiibada kale ee barnaamijka la qayb galaya dooda waxaad uga qayb galaysaa ee barnaamijkan sida tooska ah Shabeelle TV uga baxaya lamarka shaashada ku qoran ama WhatsApp aragtidaada ayaan eegaynaa doorashooyinka gaar ahaan aqalka sare iyo maamulada ka dahay qabashada doorashadaas ee Puntland koonfur waa Galmudug iyo Hirshabelle halo assalaamu calaykum walaal ku soo dhaw barnaamijka magacaaga meesha ka soo hadlayso waayahay
waa mahadsan yihiin qadku waa hagaagi doonaa laakiin qadkan xiga ee qofka ku jira magacaagii meesha ka soo hadlayso kusoo dhawow barnaamijka isma maqalno waxaan rajeynayaa inuu hagaagi doono farsamayaqaanada ayaa ku howlan ha yeeshee dooda haddii aan ku celiyo waa aqalka sare iyo doorashada ay ka daaheen galmudug puntland iyo hirshabelle sidee u aragtaasi qaabkay wax ku socdaan daawadayaasha barnaamijka iyo qadadka telefoonada ha yeeshee dhaxtaalka barnaamijka waa hagaag daawadayaasha ugu horeeya iyo qadadku inoo hagaagay qofka ugu horeeya barnaamijka maalin wanaagsan السلام عليكم معداني وعبد الله علي كان هذا دغمد هودن عبد الله iyo soo dhaweynaya marka hore barnaamijka xaaladda guud hoodan waa sidee الحمد لله حافظه waa lagu wanaagsan yahay wax dhibaatay ma jiraan marka xaaladda guud hadii aan fiiriyana intii wax soo doorata waan baleenaynaa dalku wuxuu u baahan yahay doorasho iyo ummaddu waxay ku kala badbaado ayuu u baahan yahay doorasho dadban markaan maqalnay annagu wadaanu shacabna iimaanka naga baxay ilaa iimaanka naga ma bixiye ma fahamtay waayahay waan gartay laakiin hadaanu ka socono dan baa tiri ma taqaanaa doorasho dadban la aado marka doorashadii dadbaneed intii wax soo dhoodhoobtay waanu u mahad celinaynaa waayo waxaad sidaa rabtaa haddaad weyso sidaad ka badi weysaa la yeelaa baa la yidhi waayo cabdullaahi maxaa is leedahay jawhar dhuusamareeb iyo garowe maxaa helay doorashadu ay ka daaheen saddexdaas magaalo markaan kala qaado saddexdooda wuxuu ku marmarsiyoonaa ninka la yidhaha qoorqoor dagaal baa igu furan oo mataqaanaa aaga dagaalan ku jira guud laaguna dee anigu wuxuu xukumaba waa garan lahay mar hadduunan beled weyna tegi karin muddo sanadan uu magacaaban yahay garowena dabeecadii waxaa la yidhi yani mataqaanaa hurda camal ma bedeshaa la yidhi waa dabeecad lagu yaqaana inay wax lug jiidaan oo mataqaanaa ay wax sirrijaano qofka dadka ugu dambeeya inuu noqdo uu isku dayayaa oo mataqaanaa oo la qayliyo dib loo soo eego markii inta kale ay timaado marka garowe waa shaqo lagu yaqaana isagoo inuu wax lug jiido maamulkiisu laakiin labadan kale midna waxaa farqaha looga dhegan yahay oo magaaladii dhameed oo mataqaanaa labaad ma tegi karayo midna yani mataqaanaa dagaal baa igu furan ayaa hawshiisu hadda ayaanta ku wajahan tahay marka labadaa waxaa dib u dhigayo way muuqdaan laakiin garowe wixii horey weligeed dib ugu dhigi jiray ayaa dib u dhigayo marka waxaanu leenahay ama cudurdaar la imaada ama mataqaanaa wax soo gudbiya labadan xitaa dagaal ay ugu furan iyo mataqaanaa meelheble ma tegi karo cudurdaar u noqon mayso doorashada wakti baa loo qabtay waa dad la sugayo waa dad mataqaanaa mansab iyo maamuus sheeganayo waxaa laga doonayaa inay soo gudbiyaan ummaddu waxay soo gudbisay inay soo gudbiyaan aan kula talinaynaa oon u gudbinaynaa waa mahadsan tahay cabdullaahi cali nuur ayuu ahaa barnaamijka igala qayb gelayay daawadayaasha kale waan siin doonaa fariimaha gaaban 488 saaxiibo kala duwan ayaa kusoo hadlaya magacaygu waa maxamed cabdullaahi ciise waxaan ku suganahay magaalada jowhar xaafadda horseed runtii waxaan ugu baaqayaa maamulada doorashada ka daahay in ay dedejiyaan waa mahadsan yahay daawadaha qadka ku jira halo assalaamu calaykum السلام عليكم رشبل وانا دي السلام ما يفرصنا يقانا دا دمانتود يا محمد عبدي يا كلي يا ما تعداني وفاضو ما كسوغان مقالة دي هرقيسا
waxaan u malaynayaa dooda waxay maanta ku saabsan tahay in weli dee maamulada qaar aanay weli keenin xildhibaanadii halka maxaan ku rahdayay koonfur galbeed iyo ay kasoo magacaabeen meesha la yidhaahdo aduu jubbaland marka anu haddaan tan ku hakado garowe oo de amase puntland oo kale horta waxay noogsan tahay baarlamaanka puntland inuu ninka deni la yidhaha gacanta ugu jiro taana waxaa kuu caddaynaysa siduu berigii dhoobo uu dee maaragtay xilka oga tuuray hase noqotee isagana muddadiisii de uu doorasho geli lahaa waabay dhowdahay haye soomaalina waxaa dilay intuu nin walba isagu kursigiisa ilaashanayo caddaani may maqlaysaa si wanaagsan aan kuu maqlaa marka sidee kuula muuqataa saddexda maamul iyo caqabadaha kala duwan oo mid kasta wajahayo horta waxa weeyaan anigu tan qoor waa tan iminka markaad eegto dagaalaaba ka socda dhulkii oo adigii arkay shalay xitaa gantaalaha magaalooyinka qaar lagu garaacay meel dagaal ka socdana cidi waxba ma soo xulan karta marka xaqiiqo loo dhaqaaqo meesha la yidhaahdo iyadana hirshabeellana waad ogtahay jalalaqsi iyo intay isu jiraan jawhar waxa udhexeeya buurane haddaan saddexdaa magaalo loo kala socon karin oon maaragtay shacabku iyagu ay iska moodaan laakiin aan wax madaxiyo dawladitoona mari karin qof hubaysan oo dooxoo ku jiidha mooye halkaana doorasho kama suurto geli karto marka waxa weeyaan waad ogtahay oo xaggan iyo raggii kasoo jeeday somaliland doorashadoodiina iyadana weji kale imika gashay anigu se kuwa somaliland waxaan u qabaa nin walba hadduu soomaalidii isagu mar isdallacaya iyaguna markooda isdallacayaan waayahay faado marka ugu dambayn wax badanna waa kala socotaa doorashada iyo heerarkii kala duwanaa ay soo martay sidee wax kula muuqdaan qaabka wax kula socdaan maxaase ku baaqi lahayd horta waxa weeyaan haddii mooye madaxa lagu geliyo gees aad uga baxda ma laha soomaali markii la yidhi maamul goboleedda noqda oo mid waliba wasiir dibadeed iyo wasiir gudeed iyo wasiir maxay madaxweyne ha yeesho keebaa sarreeya keebaa la amar siiya keebaa dhinac u socda midda kalena waxaan in aan fursadda ka faa'iidaysanaya arrintii daraad ka dhacday garoowe garoonka kubadda hortiisa ka dhacday hablaha sidaa dhulka loo jiidsiidayay hadday muqdisho ka dhici lahayd waxaan ku ihi mucaaradku afkay gacanta iska gelin lahaayeen oo ceebtoo dhan baa adduunka gaari lahayd markaas soomaaliyiinta sidaa isku wada dadaysa waxyaabaha noocaasi dhexdooda ka dhacayaan cuquba kama dhammaanayso doorashana kama hagaagayso asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فاطمة إبراهيم إسماعيل أو هرجيسة جوتها هاي برامج كاي كقيب جليسي أدوكنا وانسود وين إن رأي جاي برامج كا هاي الشيء مركان قيبها دحتال كاي برامج كا أيان آدي دونا كدبنا حنقصون نقود دونا فرين تجابن داودياش هكا سوي قيب جلي برامج كا يقدر كتليفون هذا محان دين هاي مركان شحنين شرودود وبماها أنا شيغهين شعبي ويقنعين قرن بي شبهدا بلدي شرفانيتيو على سي شهادو شبيلة راديو ان تي في شبيلة شبيلة قالان شرحانين شارودود وبماها من شيغهين شعبي ويقنعين قرن بي شبهدا بلدي شرفانيتيو على سي شهادو شبيلة راديو ان تي في شبيلة شبيلة
dhigaha waa ku shubaan shabeele shabeele ishtu shaahidu weeye shabeele shabeele anta qaarad adduun ir waxii ka dhacayo waxay sheeko ahaataba runta ku shaqlan shabeela ka shaabinayse shabeele radio and tv shabeele shabeele waa hagaag Shabeelle TV barnaamijkuna waa madasha shacabka qeybtii ugu dambeeyay ayaan soo gaaray barnaamijka gabagabada saaxibada ugu dambeeyay ee fariimaha gaaban ayaan dib ugu noqonayaa assalaamu calaykum bahda Shabeelle TV magacaygu waa Farxiiladan waxaan ku suganahay degmada Kaaraan xaafadda Jamhuuriya runtii waxaan ku baaqayaa in doorashada la qabto si markaasi loo dhaqan geliyo jadwalka hore u soo saareen dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada waa maasan tahay daawadahaas ay ugu dambeeyay barnaamijka guudaan waxaan jeclahay halkaas inaan ku soo gabagabeeyo farsamadii wada jireed Axmed Saciid iyo Maxamed Cabdi iyo tamintii anigu Cabdullaahi Cabdaani nabadgelyo